الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولا ليال ملكستا ودنيا إضافها عالم كاتك جوكتان. إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو، إلهينا هيدن حفديو أينما كنتم. وولالكين عتيب الشيخ أحمد muuqaalka insha allahu tacaala maanta hadduu allah raxmaanka qadaro waxaan kaga hadli doonaa sixirka qofka looga fadhiisiiyo shaqada irsaaqadana looga xiro. waa sixir run ahaantii aad iyo aad khatar u leh, dad fara badan oo la ildaranne aan arkay. sixirka noocaani wuxuu leeyahay calaamooyin lagu garto iyo kayfiyad loo cilaajiyo. shayaadiintu ama saaxiriintu ama dhaalimiintu ama xaasidiintu kama daalaan dadka ay dhibaateynayaan inay ka dhibaateeyaan jaanib kasta, meel kasta kama daalaan inay ka dhibaateeyaan. hadday noqoto dhankii shaqada, hadday noqoto dhankii irsaaqada, hadday noqoto dhankii waxbarashada, hadday noqoto dhankii cibaadada, hadday noqoto dhankii owlaadda, hadday noqoto dhankii guurka, hadday noqoto dhankii farxadda. muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa sixir ka mid a sixirada dadka lagu ibtileeyey ee loo yaqaano sixru manci alcamali walrisqi. shaqadana qofka looga fadhiisiyo irsaaqadana looga xiro. calaamooyin lagu garta ayuu leeyahay sixirka noocaana. fadlan haddii aad isku aragto calaamooyinka, walaalkayga muslimko iyo walaasheeda muslimadda ahay, ogow xanuunka ku haayo inuu yahay sixirka. sixirkaani waxyaabaha aan la yaabay oo cajiibka ula yahay oo kaga duwan yahay sixirada kaleeto waxa weeye, ruuxii ma xanuunsano, wuu caafimaad qabaa, laakiin xanuunkiisa wuxuu imaanayaa markii uu shaqo tilaab u qaado. guriga markuu joogo waa caadi, bannaankiisa markuu wareegaa waa caadi, laakiin shaqo markay noqoto ruuxii xanuun baa lagu soo tuuraya. ruuxii maaha ruux jaahila, waa ruux wax bartay, waa ruux aqoon leh, waa ruux jaamacad ka soo baxay, waa ruux active ah oo howlkar ah. haddana waxaad dareemaysaa yacni in lagu soo koobay gurigii iyo sariirtii. shayaadiintu way sameeyaan ishor istaag ruuxa inuu wax qabsado ama shaqooyinka ay ka hor istaagaan, way sameeyaan. wayna dhacday, dad fara badan bayna ku dhacday oo aan yacni aan xaqiiqatan aan la kulmay, aan arkay. ilaahayna subxaana wa tacaala ku caafiyey talooyinka markaan siinay. sixirkaani waa sixir khatar ah, dhowr calaamadood ayuu leeyahay. calaamooyinkiisa haddaan kuu sheego, yacni ruuxa mar kasta oo shaqo doonto, shaqadiina uu helo, 2 biri 3 biri markii uu ruuxa shaqaynayo waxaa lagu soo tuurayaa caajis ama culeys. caajis waa calaamadda koowaad. ruuxii inuu shaqadii raadiyo wuu helayaa, wuu nasiib badan yahay, looma diidayo shaqadii. haddana maca daalika markii uu meesha tago oo shaqadii bilaabo, 1 week ama 2 days ama 3 weeks ama 2 weeks waxay noqotaba, waxaa arkaysaa ruuxii hal mar in shaqadii lagu diray oo tilaab uusan qaadi karinba. haddii aan jaanibka kala fiirinane, dad waxaa jira ayagoo kaleeta ah oo si kasta hadday shaqo u raadiyeen shaqadii waay. meel kastay tagaan waraaqadoodii bay wataan. waraaqadihii markii la fiiriyo waa okay, laakiin ruuxii wax shaqo ah haba yaraatee ama cid shaqo siisanaysa haba yaraatee ma jirto. albaabadii irsaaqadii iyo shaqadoo dhan baa laga soo xirxirayaa ruuxa. jibankii baa shaqaysanaya, jin baa loo diraya. waxaa laleeyahay ruuxaasi yuusan camal yacni yar samayn, xataa gurigiisa yuusan ka shaqaysanin. waxaa arkaysaa habeenkii markii la gaaro qofka jadwalkiisa iyo nidaamkiisa iyo brogaraamkiisa waa degsan yahay. waaga markuu bari qofka tilaab ma qaadi karo, awood ka xoog badan iyo culeys baa fuulaya. waa calaamada koowaad ee lagu garto ruuxa in caajis laga geliyo, ama shaqada raadinteeda, ama markii uu helo shaqada in markiiba shaqadii la nacsiiyo oo lagu diro
dadkii ula shaqeynayay iyo mujtamacii oo yacni la macaamilaya in lagu diro taa waa qodobka koowaad oo lagu garto qodobka labaad ee lagu garto sixirka noocaana madax xanuun joogto ah madax xanuun joogto ah oo weliba qaybta madaxa intaa kora ah ruuxa in laga qabto yacni bini aadamku meesha keliya uu ka nool yahay waa madaxa maskaxda wey maskaxdii baa loo degayaa ruuxa waa la jahwareerinayaa ruux sooma aynan arkin meel oo u socdo maalin meel kale laga tuuray wuxuu u socday dhantonka meel magaalada ka baxsan baa ruuxaasoo jooga baa meelka usoo noqonaya shayaadiintu way sameeyaan maskaxda ruux ay ka degayaan madax xanuun wareer caajis shaqo la-aan wahsi iyo daal fara badan waa markii uu niyadiisu geliyo ama hamigiisu uu ka dhigo inuu wax qabsado u shaqaysto balka kaleeta lag waa fiican yihi maantuna haddaad tiraad kaale ila soco kaale aan soo wareegne kaale ii imow aan sheekaysane kaale ii imow aan farigudir aadne waa diyaar shaqo ma imaatay ruuxii halaaqiyo ku waalanaya caajis baa lagu soo tuurayaa walwal baa lagu soo tuurayaa xubnuhu dhan baa burburi dadka qaarkood arrinta noocaana aad bay ugu dhib qabaan laakiin ma dareensano dad badan oo shaqooyinkii laga fadhiisiyay baa jira guryahana fadhiya sixirka noocaanana waa loo adeegsaday ruux isma oga wuxuu ku dhihi walaalu shaqadii baa dhibsaday wax dantiisa ah baa waxaa arkaysaa marka qaarkood in caajisa laga gelinayo wahsina laga gelinayo ruuxii waa dantiisa waa meeshu wax ka heli lahaa waa meeshu nolosha ka heli lahaa waa meeshu irsaaqada ka heli lahaa haddana ruuxii tilaab qaadi maayo istoristaag baa lagu sameynaya dadkan waa dad xabsi ku jiro meel kastana laga soo xeeray allah ku dhaartay dibandaabyada loo maleegaya dadkan iyo siday u khabar moog yihiin waa farqi kaafiya kala dheela wey dad yacni lagu raag joogo ayagoona aanan iska warhaynin cidda ku raag joogtane oo yaani maanta dadku ka yaqaano wuu garanayaa hebel buu dadku u yaqaanaa haddana laakiin ma taxadarayo qoran akhris ma jiro wayseqaad ma jiro cibaado ma jirto waa la iska socdaa adiguna dad baa kugu maqan ka xun shaqadaada ka xun booska aad fadhiso iyo kursiga aad ku fadhiso iyo xafiiska aad fadhiso برنامج قف وحركة سامات بقول لا تن برنامج سكينية هذا نوعي مسؤولية بقول لي لا تن يعني برنامج روح سكوه أو هذا هل حد كسرني ولين مرتين هذا كان اللي نتواجه الودينة ضد كان ينسى في يومين ومروا بالقصة الحري تاسمه ودريده هل كان با في اللي قصة جدا أنت في اللي قصة أنت في واحد سكو حرمة هذا مرة بقول لي لا تن برنامج بقف كيوتا هل برنامج وصلت قلاينا مرة وحي مركز الله إلهي ما أنت تقولش كله ده لقطة الغرفة فنية لقطة هي الغرفة فنية شادين توعدوا ذاك الجانب كستير سكران ما هو حد كسو يسال شيطان أما تشني أما السحر يعني نين إحاس كيس لا نحدق ما حد ما ينسى إنسان ما حد ما ينسى حقين مر بعد إحاس كي أتقبته أضج هذا الله قدر لقوا النعسية شغور كده دايبة شغاح كي وجدها وحكة استكفره وحكا استكفل الظالمين تو يا حاسدين تو يا ساحرين تو يا ماكرين تا وحكا استكفله وحاسين صورة قال ماني ما دعي كرتي تا نيدا كسر الدون وحين كجرنا تجي او ددكي يعني ما انت هلكاس كودا بوكا هلكا لابتا سيكو هرمرتي سيكو غارتي غورمي بلاودي غورما لا غورسدي غورمي دشي وريا ددكان كو دري يا دد كان كودر يا كودا حسابي ما ديغا قلقي ما ديغا ابورتي ما ديغا دول كان كيسدو كبيري الهي ما دول كان كيسدي الهي ما كو رساقه علوشي هويد ما وجد اخر بالله قري اديو ما حد كدبا ديغ ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء الهي عدو وحسينيو ما ديغو كانت تشنيا كلمه تشنيا ما المهيغا يعني المهيغ دو شقلان سي كويد و شقيسانيا وي دعدا لبا بخود oo bahna yar tahay bahna weyn tahay oo isdhibaateeyay
sidee bahdan yarta ah horumarka u gaareen lagu dhibaateeyay baan anigu goobjoog waa xaqiiqan u ah balaayo iyo saaxiriin iyo jiman inta loo tagay reerka bahad yara eber lagaga dhigay eber xaqiiqo wey wax xaqiiqa wey ma aha wax isku dirnami ma aha bini aadan wax kasta ka filo nabi yuusuf waxa ceelka ku tuuray dad kale ma ahayn walaalihii la dhashay bay ahayd walaalihii la dhashay bay ahayd walaalihii la dhasha waa nabi aabahood baa nabiya wiilkii intay ka qaadeen bay god ku tuureen bimacnaa aabbaheen wuxuu naga jecel yahay yuusuf xaggee joogtaa marka qof soomaali ah oo iimaanku ka tegay oo diintu ka tegay oo yacni sidaas u fiirinaya qof kasta horumar gaara saas baa loo fiirinaya ilmaheyda u koray ilmaheyda saana waana ilmahaani awooddeedu kumaysa korin ilaahay baa subxaanahu watacaala albaab u furee ilaahay bari way kaa niyad wanaagsan tahay wayna kaa qalbi fiican tahay kaana cibaado badan maxaa cibaadada kuu diiday maxaa kuu diiday inaa ilaahay bariso yaa maxaa kuu diiday maxaasidnima ilmo lagu koriyaa ma dulmi baa ilmo lagu koriyaa dulmi laguma koriyo ilmo xaasidnima ilmo laguma koriyo dadka yacni dibindaabyada loo sameynayo ee meelaha shayaadiinta iyo saaxiriinta inta loo tago shilimaadka la siinayo dadka lagu baabi'inayo wiilal baa u dhintay oo cido u shaqaynayay waxaa samaynayana ehelkooda weeye bilaahi calaykum ilaahay ka baqa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxii qof saaxiro la u taga man ataa kaahinan aw caraafan ruuxii qof yacni kaahina ama caraaf dadka waxbaa sheega ah ruuxii u taga ee rumaysta faqad kafara bima unzila calaa muxamadin wuu ku gaalooway wixii lagu soo dejiyey diintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam war aawo iimaankaada hooyadaas sixiroo ma ahayn aabbaha dadka ma sixiri jirin dhaqankaa yaa ku baray xaggee ka keenta muxuuse shaydaanku kaaga sheekeeyey hore ilaahay ka absado wiilal baa u dhintay bilxaqiiqa weeye oo cido u shaqaynayay oo dad fiirsanayeen kadibna inta balaayo lagu sameeyey bog inta lagaga dhegay isbitaal la geeyey kadibna saa u nafbaxay yaa isweydiiyo wadna xanuun buu qabay baa lagu leeyahay to wadna xanuunka qab waa nin rashiinka wax loogu daree to wadna xanuunka qab waa nin yacni sixir iyo balaayo la siiyey la cabsiiye xaquuqu wadna xanuunka qabay dadku waagii hore bahalladaani way jireen laakiin lama ogsooneyn bahalladan shayaadiinta iyo sixirka wuu jiray laakiin dadka maysan aqoonin dadka saas baa lagu baabi'i jiray in bas lagu baabi'iyey hal mar baa ruuxii lagu soo boodaya matag buu ku wareerayaa kadibna aroortii waa naf baxaya bacda fitra waqti dheer kadib ruuxii dad eelkiisa markii quraan la saar balaayada ka dhex dhooqday waxay leeyihiin hebel ilahay amarkiisa u dhinta laakiin sababteeda annagaa lahayn annagaa dilnay oo maxaad ugu disheen waanana soo diro waxaa la yidhi shaqada ka fadhiisiya waanana soo diro waxaa la yidhi saas ku sameeya waa nicamna iyaa idin soo diray hebel iyo hebel war waxaasi aakhir waxba ka anficin mayso adduunka xataa dad qof dulminayso ama dhib u geynayso dhibka intaa leeg looma geysta geeri maxaa kuu kalifay naceebka intaa leeg maxay tahay laga yaabo ruux aad sidaas loo dhibaataynayo ruuxii shalay soo gacan qabta inuu yahay dadka bini aadamkaana mid u fiirso ruuxii yacni wanaag tara bay dhibaateeyaan ruuxii wax u qabtay bay dhibaanba ruuxii lu goynaya lug iyo laba ka goyna way jecel yihiinba markaa fiiri waa la yaabay dadka maanta nool dadkii hore iyo dadka maanta nool isku mid maaha wanaaggii baa xumaan lagugu bedelaya xumaantiina wanaag baa lagugu bedelaya qof baad xumaynaysaa wuu ku wanaajinaya waaba ku qanacsanya waa faraxsan yahaaba xaggayga lagama marin buu ku leeyahay waa nin xumaantiisa ka shaqaynaya ogow waa gabar xumaantiisa ka shaqaynaysa ogow saasay taqana saas bay leedahay waa adduun tagay baynu ku jirnaa sixirkaani waa sixir aad iyo aad u dhib badan iskana ogow walaalkayga muslimka ohow shaqada haddii aad yacni ku dhiban tahay oo mar walbo aad damacdo inaad shaqo raadiso shaqadii negative lagu soo dhahayo wax kaa qadanna aysan jirin waraaqadahaada waxbarashadaada aqoontaada wax kaa qadan aysan jirin hadaad aragtid gidaar baa idiin dhexeeya adiga inaad wax qabsato ah taa meel ku qoro
ويلي هو هدي آد شقيسو شقدنا علز لغا قليو شالي ساد كو اهين مانتا آدو كو اهين جدار باجري اسدبقبو gabar yahay shalay haddaad ahayd gabar nadaafad badan oo active ah oo gurigeeda iyo reerkeeda maamulata haddaad ahayd maanta caajis lagaa saaray gidaar baa kugu xiraatana iska ka digtoono intaas weeye muhiimadda inaad fahantaan ee maahan inaad isbitaallo ka daba wareegtaan iyo daawooyin meelo lagu yani lagu qasqasay inaad ka daba wareegtaan maaha war naftiina cilaajiya gurigiina cilaajiya awlaadiina cilaajiya reerkiina cilaajista adduun tagabaynu ku jirnaa dadku way xuduuddii bay ka tilaabeen xuduuddii baa laga tilaabay uqsim billahi alcadiim dadka xuduuddii ka tilaabeen iimaankii baa dadka ka tagay war isdaba qabo walaalkayga muslimkow waa isku raad jooga maxaa laygu falayaa iyo maxaa laygu waxaasa dhihin isma ogin adduunka qof aan naceeb cadow lahayn ma jiro qof aan cadow lahayn bal ii sheega idinku haddaad garanaysaan halkaa commentiga igu soo qora ruux aan cadow lahayn hadduu jiro ruux kasta cadow buu leeyahay ku neceb si kastana kuu neceb quraan ruux cod macaan oo la xasday baa garanaya wadaad imaam masjid ah oo codkiisu aad u macaana baa sixir iyo laiskugu daray xasidnimo waa imaam masaajid buu dejiyaa weyn waa nin khaari ah quraankii yaqaano cod macaan يا هدنا قرآن كي لقى توري مساجد كي لقى توري إيه مثال عربي قرآن مو يقانا صح لكن بهلا ماشي كاسو كلام بالفيري ما واحد مسلم يبلغ مسكين كودات كإمام كافيري وكان الدين له كان ولاد ما تقال إلهي قفكوا بتباتن النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي ما يا سحر كمان كان لو سمي عبادي سويس لكن ما حمي لكن اسمه السين باكو دعلي وحاني ووحجر حقيقة وي هذا ترى السحر مجرى بمعنى مسلمتي هذا ترى الجن مجرى بمعنى مسلمتي قرآن كلام بالنساء وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي الجن يسمع وابور إني عبده هذا ترى الجن مجرى سحر مجرى واحد خرافات واحد biri kamaal markii lagu gaarnaa tiraadid waagaas isma ogeen rag badan baa wareystay oo yani xanuunka hayo aanan u haysanin cilaaj dhakhaatiirta ku daaray marka dambana ii yimid waxay ugu yidhahdeen sheekho ma waagi hore tobqayaali baa u haysanaba waxaan laakiin hadda xaqiiqada ogaan waa rag tujaara ganacsata ah magaalada aan ku noolaan ku nool tujaara ma aana aaminsanan bay dhehen ما أنا مثلاً ضد واحد جرو شياطين الإنسية أو جمانك أفضل ذيو رودت كجرد كمر الحياة سان هيل إثبات إمسي قبلوت بقرنين أنت كعنت لقبت منها من قصر الأوتوبا لقيه أيوة لقلا عرراية قرآن كإلهي أيوة لقلا عرراية قرآن كإلهي قف كي دي بنابا دي بلوكسي زيادة نية waxaan u salahay Soomaalidu waa dad sheekaysta waa dad isku warama walaal waxaan u salahay midablaan ligahay soo baxnaa hebel baa ku geenay aad u fiican warnaagta adigu ku caawinaysa ee wax ku qabanaysa meesha deganta horta ma aragta godad bay deganta godad iyo dhiiqo email wasaq badan ur badan bay deganta lacag baa laga qaaday waxba laga qiitiyay jinni baa la karaamiyay jinni la kibriyo la karaamiyay إلهي نوح له وإن أضعتموهم إنكم لمشركون هذا ضيعنا قالاتي هذا ضيع عيسى حاجة قالوا كبرنا ما حول الله سينيا ضد إلا حتى كشل يسن جني حول يسير والدكم وأقول رسول الله صلى كانوا يتقانوا والغب اللي مجري عروته على رجل قبل ده مركي جورزته بحولها للسينيا يفلها يقال قبل ده مركي لجورزته أول قاد حنو باكو بلا ولا اسمعوا قولي جديد وبربرية أما واحد لغاية بعرورته إنه دامج وجالسيه جين كان يعني لبلمية وحاس الدين معها على كعبسنا معها وتكون أرتجي ثاني إسكيل عليه وما داني وما لباباشي ملك السنة لباباشي لكن خبر موغيالا سيجود كودا أدوي سو جيستا وفي جنادا وهذا ملك السنة إلا يدين فلسطين نمان كاني شياطين تأه
يعني إلهي ببلا لقلين يعني إني دad كاني بادييان جيدك الصحدان ay ka leexiyaan waxay heleen dad la shaqeeya oo jidadka u fura dadkaas weeye dadka maanta adeegsanaya dadkaas way dadka maanta wadooyinka u furaya dadka ka digtoonow iska ilaali dadka qaarkiis gurigaada iyo nafsadaadana ku dadaal gurigaada nafsadaada ku dadaal haddii kaleeto xanuun aan ku haynin inta lagugu soo sheego dhakhtar intaad tigdid markiiba xamiitada lagaa saaro kilida lagaa bixiyo naaska lagaa qalo wadnaha lagaa jeexo madaxa operation 25 meel lagaa qalo hadhowna waxaad tiraahdaa isma aan ogeyn maxaa ku waaraya soo qof muslim ma tiid ma diinta ilaahay saartay meel yar baa laga qabanayaa isla markii dhakhtar baa tagay dhakhtarkiina waa intuu laayahay lacag buu raadinaya qalqal baa leeyahay ruuxa boosi ورتد عفمات قبل أوبريشن ما قرنا هنا هل حبنا يسمى قبل مركز ماشي تجاين وعفمات قبل مركز كسر غير وعفمات قبل ورمالك دكتور كي بشغل غفري اللي قفك يعني عذر كاسو قباي أوبريشن عملية كسمية روح عن قلب يمسك فوت على قلب قبل يروح حاجة حميد الله قبل يروح حميد الله ولا يروح حاجة كلية يبان هي لقنا غير محاسب بهاي ده لو سمية ويدعي كلام طبعا حنوننا كان عادية لكن بقول لك مثلا عشان أنا وأنت باري يعني الله كل ما تذكر نوع عثر يبدأ تقابه قرآن صاري أوادي وحنا أقول شيء جاي ما يسوى باري إلى أرك أو ولا كي مسلم كان دكتورو ضدك ولا الله عليه وقدك أنت بعد لجع على استي مقال كحاجة أيام كل ما يستر دمرة يعني قابك له علاج لها يعلمون يكسر مسترا ولكن عتاب الشيخ احمد اد بن سلاميه الهي سبحانه وتعالى هيدي بركيه الهي هيدي حفظيه مركز جوتان شرطه اصحاب الشروط الله يدين قبل باديو الهي سبحانه وتعالى الله يدين حفظيه الهي بحافظه الضمدنا الاليه الله يدين الاليه الهي سبحانه وتعالى هيدي الاليه ذنبين الهي سبحانه وتعالى هدافه مقال كان لو ولا لا كليته سيفي ودكتورنا وانا فايدستان اد بن سلاميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته